haddana xitaa waddankan joogo waxaan ku duulaa diyaaradaha dagaalka F-16. gabar Soomaaliyeed oo caadi ah dhawaaqa diyaaradaha ee gudaheeda ku jiray ayaa ku abuurtay riyo gaar ah riyadaas oo qoyskeeda iyo bulshadeedaba ay ku loolameen ilaa madaxweynaha Soomaaliya laftiisa ay gaartay si uu meesha uga saaro wax kasta oo caqabad ah si uu qof walba u guuleysto waxayna noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee duuliye ka noqota diyaarad dagaal balse nasiib daro waxayna ahayd gabadhii ugu dambeysay qofka aan ka hadlayno qof kale ma aha waa Asli Xasan Cabaadi astaan Soomaaliyeed bishii Janaayo 1958 Asli Xasan Cabaadi waxay ka dhalatay qoys ladan oo ku noolaa magaalada Buulabarti ee bartamaha Soomaaliya halkaas oo ay ku dhammaysatay waxbarashadeedii dugsiga hoose iyo dhexe ka hor inta aysan qoyskeeda u guurin caasimadda Muqdisho si ay u dhammaystirato waxbarashadeeda sare iyada oo si cajiib ah ugu wanaagsaneed maadooyinka sayniska gurigeeda cusub waxa uu ahaa ishariyadeeda midaas oo bedeshay nolosheeda oo dhan qoyskeedu waxay ku noolaayeen meel dhowr mitir u jirta saldhigga militariga ee Afisiyoni kaas oo dhawaaqiisa diyaaradeed ku dhiirigelisay Asli inay ku riyooto inay noqoto gabadhii ugu horeysay ee duuliye ka noqota diyaarad dagaal dalkeeda waxay ku raaxaysan jirtay inay daawato diyaaradaha kacaya iyo kuwa soo degaya iyada oo rajaynaysay inay maalin maalmaha ka mid ah ka duuliso diyaarad garoonkaas laakiin riyadeeda waxaa kala kulmay dhibaatooyin iyo caqabado laakiin go'aan qaadasho adag waa furaha guusha jidkii ay ku xaqiijin lahayd riyadeeda waxaa ka buuxay dhibaatooyin laga bilaabo diidmada aabaheeda iyo dhaqanka bulshadeedaba intaas kuma eka dhismaha ciidanka ee dalkeeda uma ogolayn inay noqoto duuliye ilaa ay sheekada riyadeeda soo gaadhay dhagaha madaxweynihii Soomaaliya ee xilligaas Maxamed Siyaad Bare wuuna u yeeray si uu ugala hadlo rabitaankeeda una hubiyo inay ka soo bixi karto mihnadan adag ee khatarta ah wuxuuna u sharaxay dhibka uu la kulmayo qofka doortay xirfadan iyo dhibka haysta balse adkaysigeeda iyo go'aankeedaba waxa ay meesha ka saartay cabsi walba waxa ayna qancisay cid kasta ka bilow aabaheeda ilaa madaxweynihii dalka waxayna gudaha u gashay dugsiga duulista hawada waxayna dhammaysay sanadii 1976 sanado badan ayay ku qaadatay howlgallada ciidanka ee dalkeeda hooyo muddadaas oo ay si ballaaran u heshay caannimo gaar ahaan kadib markii ay ka qayb qaadatay dagaalkii lagu xureynayay dhulka Soomaalida ogaadeenaya dalka qalbiga ayuu ku sii jiraa markii ay dhammaatay shaqadeeda ciidannimo waxay u hijrootay Mareykanka wayna guursatay waxayna noqotay hooyo 4 caruur si kastaba ha ahaatee jaceylka ay u heeso dhulkeeda weligeed kama bixin 30 sano kadib waxay ku soo noqotay magaaladeedii si ay sanadaheeda howlgabka ah ugu qaadato sidii ay xirfadeeda duulimaadka iyo khibraddeeda ugu gudbin lahayd jiilasha cusub waxqabadkeeduna kuma eken oo keliya dhanka duulista xitaa waxay danaynaysay howlaha bani'aadantinimo ka hor intaanay soo noqon sida ay wax ugu biirisay kolonyo badan oo bani'aadantinimo oo ay ku jirto kolonyo gargaar ah oo ay ururiyeen qurbajoogta Soomaaliyeed sanadii 2011 waxay kaloo wax badan ku soo kordhisay mashaariicda loogu talagalay dib u soo nooleynta haweenka Soomaaliyeed inkastoo ay mar walba ku faanto inay ahayd gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee duulisa diyaarad dagaal laakiin waxaa wax laga murugooda ah inay isla ayada noqoto gabadhii ugu dambeysay inkastoo ay ka soo wareegatay in ka badan 40 sano kadib qalinjabinteeda sidee u aragtaa qisadan horey ma u maqashay intaan ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh